kulanti wanaagsan qiyaarta nala socotay dalkeenba meel kasta oo aad joogtaan waa 10 Oktoobar sanadka 2025 waa jimce qodobada aan idin hayana waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay gobolka Bariga Dhexe oo caawa mid kasta uu doonayo guul diblomaasiyadeed inuu la hoydo dhammaan dawladaha waaweyn ee adduunka ee loolamaya iyo waliba dhinacyada ku dagaalamaya magaalada go'doonsan ee ku taala marinka qodobadaasi waxa kamid ah ninka ugu weyn dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Falastiiniyiinta ee wada hadalka garwadeenka ka ah Khaliil al-Haya ayaa waxa uu sii daayay caawa shir jaraa'id oo dhinacyo kala duwan uu taabanayo wadamo badan ayuu u mahad celiyay halka urur kala duwanna uu u gacan haatiyo oo ku yiri abaalkeena ma hilmaami karayno marka la fiiriyo hadalkiisan waxa uu eg yahay nin gaaray guul ballaaran oo dhinacyo kala duwan taabanaysa isla markaana shacabka Falastiiniyiinta ayuu dardaaran xoog la siiyay maxay tahay waxyaabaha qarsoona oo shirka iyo madasha wada hadalka Sharm el-Sheikh ka soconaya ee dadka laga qariyo uu tilmaamay waxa uu yiri war ogaada haddii aad tihiin Falastiiniyiin Arab iyo dadka dunida Islaamkaba waxa guulaysta waa adinka oo waxaan haynaa talaabooyin qurux badan oo yeeddeela leh waligan haniye jabina ayuu yiri warkiisa oo dhameystiran iyo sida loo taxliiliyay ama loo falanqeeyay ayaan barnaamijkan ku sheegi doonaa waxaan sidoo kale eegi doonaa madaxweynihii wadanka Masar General Abdel Fattah al-Sisi guushii iyo farxadii ayaa inta ka farabadatay hadallada caawa uu sii deynaya waxa ay noqdeen kuwa la yaab leh oo waliba warbaahinta adduunka ay aad u taxliilinayaan waxa uu leeyahay ninka la yiraahdo Trump waa nabadoon waa nin haliyay ah waa nin u baahan adduunka oo dhan inay u dhaqmaan si wanaagsan sidaas oo kalena isaga ay kaga daydaan sida daraadeed dawladda Masar anigoo afkeeda ku hadlaya waxaan leeyahay Sisi isagoo hadlayo leeyahay markaasi Trump waxa uu istaahilaa abaalmarinta nabadda adduunka gacanta in laga saaro hadalkan waxa sii daayay caawa telefishinka al-Qaahira al-Ikhbaariya oo maalmihii ugu dambeeyaba ama saacadihii ugu dambeeyaan yiraahdo noqday isha wararka laga qaato shirka Sharm el-Sheikh maadaama warka aad loo ilaalinayay si kooban loo hayay isla markaana aysan ogoleen cid walba in ay si fudud ku helaan warbaan idin kaga hayaa sida Trump loo amaanay caawa oo madaxweyne Carbeed u amaanaya waliba inta waxaan ku dari doonaa Steve Witkoff ninkan Trump u qaabilsan Bariga Dhexe ee Jared Kushner labadaba caawa waxay ku sugan yihiin Israel waxay ka qayb galeen shirka kooban ee golaha wasiirada Israa'iiliyiintu ay yeesheen Netanyahu cadaadis ayaa markan lagu hayaa oo cagta ayaa madaxa looga hayaa waxa la leeyahay suuragal maaha in golahaada wasiiradu ay diidaan in shirkii aan waqtiga xeelada dhaqaalaha iyo waliba wixii tabar lahaye la isugu geeyo aad fashilisaan waa inaad aqbashaan in shirkaasi ay tiraadaan diyaar ayaan u nahay waana aqbalnay waxaan ahayn halkan uma fadhino mana yeelayna Trump soo safraya qalinka heshiiskiisa dhinac ka qabanaya marka waa inaad dadkiina u sheegtaan in shirkan aad aqbasheen sidee caawa adduunka loogu fasiraya dhacdooyinkan barnaamijka ayaan guud ahaanba intaasi ku gorfayn doonaa akhyaarta nala socotay waxaan ahay Cabdicasiis Barrow idilkeenba soo dhawaada YouTube-kana subscribe saara oo mahadsantiin Israel caawa waxa ay bilowday kulamo kala duwan oo lala yeelanayo golaha wasiirada magaalada Tel Aviv looma kala kicin ilaa iyo gelinkii dambe sida laga yeelayo heshiiska wasiirka istiraatiijiga ah uu soo qaaday ee la filayo dhawaan in la saxiixo marka Trump uu soo gaaro gobolka Bariga Dhexe mas'uuliyiintii ugu sarsareysay gobolka Bariga Dhexe u qaabilsanaa Trump ayaa caawa ku hooyanaya dhulka Falastiiniyiinta ee la haysto waa Jared Kushner ninkan uu sodoga u yahay Trump iyo waliba Steve Witkoff ergagaysa Bariga Dhexe labada dhinac labada nin waxa ay doonayaan golaha wasiirada Israel in lagu cadaadiyo in heshiiskan ay meel mariyaan Netanyahuna aan laga yeelin wax marmarsiyo ah oo ku saabsan in uu dacal marayo heshiiskan iyo dhaqangelintiisa isagoo si hadlaya waliba Netanyahu caawa xilli hore
waxa uu amar ku bixiyo dagaalka ka soconaya magaaladaasi in la joojiyo oo xabad joojin lagu dhawaaqo 72 saac kadib maadaama la sii deynayo maxaabiista labada dhinac ay kala haystaan. haddaba warbaahinta Israa'iil ayaa ku warantay in golaha wasiirada Israa'iil uu bilaabay kulan rasmi ah oo lagu ansixinayo heshiiska xabad joojinta ah ee ka soconaya magaalada go'doonsan kaasi oo lagu gaaray xalay gelinkii dambe magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar kadib wada hadallo toos aan ahayn oo ay galeen Israa'iil iyo dhinacyada hubaysan ee Falastiiniyiinta. kulanka ayaa dib u dhacay dhowr jeer waxaana ugu dambeyntii dib loogu riixay saacadihii dambe ee caawa sabab la xiriira kulamo gaar ah oo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu la yeeshay ergada Mareykanka uu hogaaminayaan Steve Witkoff iyo Jared Kushner kuwaasi oo ah wakiilada madaxweyne Trump ee gobolka u qaabilsan. telefishinka 12aad ee Israa'iil ayaa horey u sheegay in aan wax cod ah loo qaadi doonin heshiiska lagu meel marinayo magaalada go'doonsan intii uu socday kulankii hore ee golaha wasiirada waliba golaha kooban ee loo yaqaan cabinetka kaas oo kulanka uu ahaa mid si gaar ah loogu falanqeeyay heshiiska xabad joojinta. afayeen u hadlay Israa'iil ayaa shir jaraa'id uu qabtay waxa uu sheegay in golaha wasiirada ee kooban caawa uu yeelan doono kulan kadibna ay xukuumadda oo dhan kulmi doonaan si ay u ansixiyaan heshiiskan. waxaa intaasi uu ku daray in 24 saac gudahood laga bilaabo kulankaasi ay bilaaban doonto xabad joojinta rasmiga ah ee magaalada go'doonsan ka dhaqan gali doonta. waxaa sidoo kale la sheegay in saaka aroortii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay in Israa'iil iyo Falastiiniyiintu ay gaareen heshiis ku saabsan wejiga koowaad ee qorshihiisa xabad joojinta iyo isweydaarsiga maxaabiista. heshiiskan ayaa yimid kadib 4 maalmood oo wada hadal ah oo aan toos ahayn oo ka dhacaya magaalada Sharm el-Sheikh iyadoo ka qaybgalayaal ay ahaayeen Masar, Qatar, Turkiga halka Mareykanka uu lahaa doorka garwadeenka iyo damaanad bixiyaha heshiiskaasiba. sida ay qeexeen warbaahinta Tel Aviv waxaa weli qase ka jira baa layiri oo ku xiran 48 la hayste oo 20 kamida ay yihiin kuwa nool halka inta kale ee gacanta uga jira nimankan Falastiiniyiintana ay yihiin maxaabiis. in ka badan 11,100 Falastiiniyiin ah kuwaasi ayaa qudhooda Israa'iil ay gacanta ku hayaan waxay la kulmayaan tacadiyo kala duwan oo ka dhacaya baa layiri xabsiyada nidaamka. tan iyo 7 Oktoobar 2023 Israa'iil ayaa weerar toos ah ku haysay magaalada go'doonsan ee Gaza waxaa la soo warinayaa 67,194 qof inay ku dhinteen sida ku xusan diiwaanka laga qoray magaaladaasi. 169,890 qofna ilaa caafimaadku waxa ay qeexeen inay dhaawacmeen. inta badan waa haween iyo carruur sidoo kale waxaa gaajo daran u geeriyooday 460 qof oo ay ku jireen 154 carruur ah sida ay sheegtay hay'adda xuquuqda aadanaha ee sida gaarka indhaha uga haysay dagaalada ka soconaya magaalada go'doonsan. hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa Falastiiniyiinta ee wada hadalka ku jiray Khaliil al-Hayy ayaa goor dhaweyd ka soo muuqday warbaahinta isagoo la hadlaya shucuubta dunida Islaamka kuwa Carabta, Falastiiniyiinta iyo dadka ku sugan magaalada go'doonsan ee laga gorgortamay maalmihii ugu dambeeyay sidii ay nabad ku heli lahaayeen. gudoomiyaha wada hadalka ee Falastiiniyiinta al-Hayy ayaa sheegay in kooxdiisu ay si mas'uuliyad iyo daacadnimo leh ula dhaqantay qorshaha madaxweyne Trump waxana uu sheegay in kaasi uu ku saabsan yahay in lagu dhawaaqo heshiis xabad joojin ah intii lagu guda jiray wada hadaladii ka socday magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar. Hayy waxa uu tilmaamay in kooxdiisu ay u gudbisay qodobo jawaab ah oo ilaalinaya danaha shacabka isla markaana dhiigga bulshada ee daadanaya lagu badbaadinayo. waxa uu xusay in heshiiska lagu gaaray goobta uu yahay mid kooban waxana uu ugu muhiimsan buu yiri 4 qodob. waa furitaanka goobta loo yaqaan Rafac, gelitaanka gargaarka bani'aadanimo ee magaalada go'doonsan iyo isweydaarsiga maxaabiista sida uu qeexay. waxa uu tilmaamay in lagu heshiiyay in 250 la hayste oo Falastiini ah oo lagu xukumay xabsi madaxa ah ku furta la sii deyn doono. waxaa intaasi wehlinaya buu yiri 1,700 oo la haystayaal ka soo jeeda magaalada go'doonsana.
xaya waxa uu xaqiijiyay in dhinaca Falastiiniyiintu uu ka helay damaanad qaad rasmi